kulankani oo ah mid looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho ayuu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale kulankani xaadir ku ahaa guddiga baarlamaanka uu qaabilsan amniga iyo difaaca iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha amniga iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir. Kulankani intii uu socday ayaa si weyn waxa loogu gorfeeyay arrimaha la xiriira amniga magaalada Muqdisho oo tan iyo sidii loo garab bisha barakeysan ee Ramadaan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dhawaaqay howlgalka la magac baxay nabad ku afur oo amnigu magaalada faraha ka sii baxayay. Kulankani markii uu soo idlaaday ayaa saxaafadda waxaa la hadlay wasiirka gaashaandhigga ahna si hayaa xilka wasiirka amniga Maxamed Sheekh Xasan Xamuud isagoo saxaafadda u sharaxay kulankani iyo waliba waxyaabihii lagu soo hadal qaaday. soo kordhay magaalada Muqdisho usbuucii ugu dambeeyay ayuu ahaa laga soo bilaabay dilkii xildhibaanka Maxamed Maxamuud Xeyd ciidamadii kale ayagana madax laga jibiyay ilaa gaariga ugu dambeeyay Shalma Daraad qarxay yani intaas oo dhan ayaan waxaan istuslimaka Ramadaan ayadoo la joogo ummadii ay soomayso oo meeshii farxadda reenta lagu jiro oo bishii oo cibaadada ah oo dib dhaafka ah in nala soo eegto maalin cad in dadkii la dilo ciidamadii arin aad u foolxun waay intii ku dhimatana u tacsiinina intii ku dhaawacantana Ilaahay ka gargaaro ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay magaalada Muqdisho aan nabad ugu wada noolaano aan iska celino cadawga hal meel aan ugu soo wada jeesano aan gacmaha isqabsano horteena nin askari ku dilay in la waayo ma aha wax alaal wixii ana ka dhinaceena ciidamada amniga daan mas'uulka ka ahay wax alaal wixii dhinaceena ah ay ku saabsan intayada ciidanka kor loo qaado wax habeen iyo maalin ku imaan kara ma aha dadaalkeeda waa wadnaa laakiin inta fudud ee aan dadweynaha ka rabno waxa waa inay nagu kalsoonaadaan. Maanta oo kaliya magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal dhowr ah iyadoo maalmihii la soo dhaafana dilal kuwan la mid ah iyo qaraxyo ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.